waxaan joognaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu buulanyaa yaa seetiin وفي عنتي عادي عاد بانو فرحسناهي الحمد لله رب العالمين وحاجر يا ودك وحاجر أبارتي أحمد يا كدرته ودد الدنيا بله يا كدرته ماشي سكديرة غارزة كاونتي ودن منده نودست ما مايرات ماشي نبقى باجرة وحاجر حوليه نكي حول لها أما أري يلو يا dadkii bini aadanka ahaa isku sin noqday in loo biilo warun sama in la biilo oo arigi iyo loodi in la biilay noqotay aniga geel wax la siin maana wali arkin dadkii marka hore waa maciishadii abaartii iyo corona iyo problemkii sida ahaa ee la ogaa ay ka jiray Kenya muzimna ay corona ay COVID-19 uu keenay abaartii hadda ku darsantay meesha dhumitin baa ka jirta dhumintin waxaad ilaahay aan laga dhumin oo mucjiso weyn baa ka jirta marka waxa weeye maantoo kale waa maalinka Soomaalida tiraahdo geesi dharab kuma jiro geesi dharab kuma jiro maantoo kale ninkii ummadiisa iyo dadkiisa wixii cilmi iyo aqoon oo ilaahay siiyay iyo xirfadiisa maanta oo aad gaashay muslim ma garanaysaa maanta soo garab istaago oo maanta noloshan hadda maanta meesha taalo keeno ninkaa asaga unbaa ay maaragtay ninkii maanta ummadiisa ka naxay mustaqbalka mid hore iyo mid kaleba waxaa weeye wuxuu heli dhowr ajir buu heli wuxuu heli in ilaahay xaggiisu ajir ka helo oo ajir weyn ka helo sababtoo ah qoys walba oo iyo shakhsi walba oo wax qaata wuxuu noqoni ما أعرف روح دعيو نقولي دعاء أيضا هاد عنو جير إلا غير كنك هو فاميلي سايسة دعاء أيضا وحين نقولي نت ما أعرف أوكشو ما أعرف في آخر يدوم كل يومين نقولي وحرمنا ودونينا ونشيلينا ضدك كله متعلمين تعويانك ويل ويشاسك هنتدي إلهي سي ما أنت مالكم الجد ما أنت وعشيرين عنك أنا وسيني تشيف وان دقحلي حسين خليف مرة كم قدر سيني نيانيا كم قدر بنا بولان جورنا وبولان نيانيا وحرمنا ونشيرينا تذكر إلهي وحسيي هنتدي إلهي سيي إن أي معرفتي ما أنت مطلوب صوفيريا وحان كلو ربا إن أقدره تذكر سياسيين maaragtay fursadaha aadka ummadda uga helaan soo ma fahmin siyaasi ana waxaan ku jiraa quota century man chiefay waxaan u malaynaa hal MCA oo 5 sano kali fursad uu helo ma helayno civil servant waa hand to mouth way politician ka codka waxa way codka dadweynaha ay wataan fursado muhiim ay helaan fursadaha maxaa lagu helaa dadkii baa lagu helaa dadka marka sida awgeed waxaan doonaynaa wax allaale wixii all transparent Dadaab sub county war maanta maalinku ma jirto war sidii ninkan uu sameeyay waa one of the aspirant waa ninkan Ahmed Chita waa dadka macnaha raba kursi soo ma garan ninkan maanta magaaladii Buulanyaanya hadii Ilaahay yiraahdo uu naga farxiyay waxaan leenahay reer Buulanyaanya Ilaahay ka farxiyo Soomaaliya Ilaahay ka farxiyo waxaan doonaynaa waxaan ku sheegaynaa point fiican baad meesha ku yeelatay point fiican waxaan ognahay inaad dheerta soo martay ama qayliye soo martay oo labada wadaad soo martay hadda annaga aan bilowday laba siigaale iyo aad bilowday maartay lama jaalay wadaad bilowday waxaan codsi naga meel dharkeelna la dhaho meesha jirta safarta dambe ee madaxdiisa iyo gruubkan inaad ugu dartaan oo nagu soo magaalada naga rabsaantay waan codsanaynaa marka sida awgeed aad baa u maasan tahay warre Buulanyaanya maxaad aadeen وفجينيك ما تراسيك النوكيني أيوة مرعي الحلي لفلاجي تعالي إنك ما تراسيك النوكيني خير الله سيئو وحان هي وياش بوليا يا مان هي إن شاء الله إنك ما تنوكيني سيدو لو فرحي الله وفرحيه سيدو ما تريت الألقى وقاضي أسينا الألقى الله وقاضي
دنت وليه الله وياه إن شاء الله أنت أصلا من الله نك سياسي نك محنكون أو حيستوى إيه ولا الله دي دتك أبارها حيستوى أي سلا أقول نحن أيام دونينا أصلا وحنكون نقول يقرب بحنكون السلام عليكم. I will speak English first and then I will talk in Somali language. I think right now, as the senior chief one has said, there is a very serious drought in this area. This drought is extensive. It is in the entire Garissa County. And particularly the Dab sub-county, we have animals have moved out and the people are living without livelihoods. Animals have moved far away to look for water and pasture. So it is very important. It's very important, and my appeal is to the government of Kenya. It's very important to intervene now because probably it will be another 2 months or so before we have the rains. And the drought situation is such that people need relief food right now, urgently. So I want to appeal to the government of Kenya. I want to appeal to humanitarian agencies to come here and support the people now. So that's my appeal. As an organization, as RRDO, we are trying to do our part. Today, for example, we are going to do relief distribution in 6 centers. This Yahley being one of them. The other center is Labasigale. The other center is Welhar. The other center is Bolakhair. The other center is Bogier. The other center is Sarevo. We want to cover those 6 areas, and after that we also want to cover the other remaining parts of the county. But we are giving very little compared to the needs that are there. For example, this village has over 1,000 households. This village, but we are only giving food to 105 families. So that tells you, and the entire population right now, the entire population needs to be supported. So I'm appealing to the government of Kenya, to well-wishers, other humanitarian agencies to come and support our people. Our people need support right now. وحيرة of Somalia. waxaan rabaa inaan la hadlo dadka deeqda bixiyaan iyo adduun weynaha dhulkanayto gobolkan asal counties la dhaho ilaa 6 county waxaa ka jirta abaar baa jira xoolo lama hayo haddii la hayana waxba dadka uguma filan suuq male meel la geyn male ninkaa gadan male kolka dadka inay la soo gargaaray u baahan yihiin arrintan aan maanta samaynayno 6 meelood yaan sidoo kale raashin uga bixinayna laakiin baahida jirta hadaad fiiriso wixii aan bixinay waa wax aad u yar kolka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka bixiyaan dawladda Kenya dadka deeqda bixiyaan maanta inay dadkan la soo gargaaro oo waliba county-gan sub county-gan la dhaaf aad iyo abaar uga jirta kolka arrinta ayada waxaan rabnaa annaka intii tabartaanada waan dadaalnay laakiin in dadka la soo gaaro oo garab la siiyo arrintaasaan u baahannahay kolka Bulanyanya waad mahadsantihiin inta maanta tabartaanada noqoto oo soo gaarsiinay laakiin waan isla joognaa dadaalku waan ku jiraynaa insha Allah inta ogaad mahadsantihiin وريا انتي بخير انتي بخير ادعي ابا